لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii 51 ee tafsiirka Quraanka Kariimka ah casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 110 ee suuratu Ali Imran waxaa casharkeennii hore dhamaadkiisa uga soo hadalnay dadku maalinka qiyaamo labada qaybood oo ay kala noqonayaan qayb wajigoodu uu cad yahay oo daacadii iyo nuurkii uu ka muuqdo ee jannada Ilaahay galaya iyo qayb wajigoodu uu madoobaaday oo kufriga iyo cisyaanku ka muuqdo ee naarta galaya qolo kastaahina waa ay ku waarayaan meesha ay galayaan Ilaahayna inuu asagu leeyahay koonka dhan ardada iyo samada iyo wixii ku dhex jira arrimuhuna asaga u noqon doonaan ayadan casharkan uu ka bilaabanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegayaa ummadda Nabi Muhammad inay yihiin ummadaha dhan kuwa ugu khayrka badan markii uu nabigeenu noqday calayhi salaatu wasalaam ambiyada kan ugu khayrka badan ayaa annaguna waxaan noqonay ummadaha kuwa ugu khayrka badan sababaha khayriyadaas ay ku muteenna waa kuwan Ilaahay uu ka sheekaynayo waxa ay ku khayr bateen Ilaahay baa nooga sheekaynaya Ilaahay wuxuu leeyahay kuntum waxaad ahaateen ummadda Nabi Muhammad khayra ummatin ummad kuwa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan ummadaasoo ukhrijad la soo saaray linnaasi dadka loo soo bixiyay dadka loo soo diro dadka wanaaga fara xumida ka reeba jannada sabab ugu noqda naarta ka badbaadiya xaqi ugu yeera dadkii ugu khayrka badnaa ayaa tihiin sababaha khayriyadaas aan ku mudanay ee haddii aan la nimadno aan khayr badanayna waa kuwan Ilaahay wuxuu leeyahay ta'muruuna waxaad fartaan bil ma'ruufi wanaaga ayaa fartaan wa tanhawna waxaadna reebtaan anil munkari waxa xun wa tu'minuuna waxaad aamintaan billahi ilaahina waad aaminsantihiin oo Ilaahay inuu wax kasto wanaaga leeyahay wax kasto xunna ay mustaxiil ka yihiin Ilaahay marka wuxuu leeyahay saddexdaas tilmaamood ayaa ummadda uga khayr badantii ina macruuf ka fartaan ina munkar ka reebtaan in aad Ilaahay rumaysantihiin haddaba haddii ka waran macruufkii la fari waayo munkarkiina la reeb waayo khayriyadii ma jirayso haddii munkarkii macruuf loo arko macruufkiina munkar loo arko khayrkaasi ma jirayo waa in marka lagu dadaalaa munkarka reebidiisa macruufka faridiisa waa in oo wadadii rasuulku marayna loo maray calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay ee ahayd man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisaanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wadhalika adhafu al-iman maratibtaas ay leedahay waana la kala leeyahay qaybad dawlada kaliya ay leeyihiin ayaa jira oo adigoo shakhsi caadi ah haddaad aragtid qof munkar ku jira munkarkaasina uu gacan u baahan yaho inta soo oradid adigu qofkii iskama qabanaysid ama iskama xiraysid ama haddaysa ahayn waxyaalo yar yar marka wuxuu leeyahay shuruudo ayuu leeyahay munkarka reebidiisa sidoo kale macruufka faridiisa shuruudo leh aqoonna waa leeyahay maanta waxa dhibaatada ka jirta ay tahay dadkii cilmigii ma baran haddana kulli qof kasta ay cilmigii uu ka jawaabaa waxyaalo badan oo munkar ahna macruufa laga dhigo way farayaan wax badan oo macruufana munkara laga dhigo way reebayaan sababtoo ah hawadoodii ay dadku ka socdaan waa dhibaato jirta weey dadka mar haddii hawadoodu ay diin u noqoto waxay rabaanna way diidayaan waxay rabaanna way farayaan qofaa wuxuu ku leeyahay anigu sheekhaas codkiisa kama helo
qaabka wax u sheeg kama helo qofa wuxuu leeyahay waxaas kama helo ka helidiya marka waxay noo noqotay macruuf ka helid la-aanteena munkar ay noo noqotay ilaahay marka wuxuu leeyahay sifaadkaas ayaad ku mudateen khayriyada ilaahay marka wuxuu leeyahay haddii dadka ahlu kitaabka ahi ay muuminiin noqon lahaayeen oo rumayn lahaayeen ayagay u fiicnaa lahayd walow aamana hadduu rumay lahaa ahlul kitaabi kitaabka ehelkiisa oo yahuud iyo nasaara hadday muuminiin noqon lahaayeen lakaana iimaankaas wuxuu u ahaa lahaa khayran mid wanaagsan lahum ayaga khayr ayuu u noqon lahaa iimaankaas inay muuminiin noqdaan ayaa u khayr badnaa laheed ahlu kitaabka maxaa yeelay cadaabka ilaahay ayay uga badbaadi lahaayeen jannadii ilaahay ayay ku mudo lahaayeen haddana ilaahay wuxuu sheegayaa oo uu daba dhigay inaysan kulligood wada xumayn ee muuminiini ku jiraan haba yaraadeen laakiin inta badan ay muuminiin noqon waayeen markaasuu ilaahay wuxuu yidhi walow aamana haddii ay rumay lahaayeen ahlul kitaabi kitaabka ehelkiisii lakaana iimaankaas ayaa khayran wanaag u ahaa lahaa lahum ayaga minhum waxaa ka mid a muuminiinta ahlu kitaabka almu'minuuna kuwa mu'miniina mase badna oo cabdullaahi binu salaam iyo zayd binu sacna iyo boqor najaashi iyo dad noocaas ah ka mid a wa aktharuhum intooda badanse wa aktharuhum intooda badanna alfaasiquun oo kuwa daacada alla ka baxo gaalo weeye intooda badan ma rumayn marka hadday rumay lahaayeen saasa u khayr badnaa laheed ilaahay wuxuu leeyahay hadday rabaanba intooda badan ha ahaadeen gaalo adinka muuminiinta waxba idinkama dhibayaan waxa ay idinka qaadi karaan ma jirto lan yaduruukum adinka idinma dhibi doonaan oo waxba inkama tari doonaan ilaa adan dhib oo carabka ma ahan ilaa adan wax yaroo dhib ah oo carabka ah oo cay ah iyo hadal xun iyo afka kaliya wax maahane wax kale inka qaadi karana ma jiraan wain yuqaatiluukum haddii ay idinla dagaalamaan ee ay inta carab soo dhaafta gacanta la isula tagana yuwalluukum waxay idin jeedinayaan al adbaara dabayaalka macnaha way dib jeedinayaan waa cararayaan dabaday roganayaan waa baxsanayaan uma intaa kabacdina laa yunsaruuna looma hiilinayo xagga alle gargaar kama haystaan awoodoodii marka laga adkaadana allana uma hiilinayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay muuminiinta haddii nimanka gaaladaahi wax dhibahoo aan afkaas ahayn cayda iyo brobagandadaas ahayn inkama qaadi karaan haddii gacanta la isi saarana waxa weeye way idinka cararayaan marka saas laleeyahay muuminiinta waa haddii muuminiintu ay wadadii saxda ahayd ku toosaan shuruuddii laga helo dadkii saxda aha ay noqdaan laakiin maanta waxaan aragnaa kooxo badan oo islaamka dhiiggiisii daadinaya jihaad sheeganaya gaalo markay arkaanna ayagu dabada roganaya maxaa yeele ayagaaba laga yaabaa in gaaladu ay soo diyaarsadeen oo keensadeen haddii marka uu muumin run ahaa lahaa ma carareen ee ayagaan waxay yihiin muuminiin dhaba aan ahayn marka muuminiinta dhabtaahi waxa weeye ee jihaadkii shuruudda laga helay ku socdaa oo ayagu alla ku toosan oo alla maciyadiisi haysta ma cararaan laakiin kuwan kale waa kuwo ayaguba cadowga islaamka ah oo islaamka in lagu baaba'sho loogu talagalay duribat waxaa la dul saaray oo laga dul dhiso la dul dhigay calayhim ahlu kitaabkaas korkooda adillatu dulli oo nimankaas yahuudda ah dulliya alla daba dhige aynamaa huqifuu meel allaala meeshii laga helaba dulli iyo ihaano ayaa dul taalla ilaa bixablin xarig inay haystaan ma ahane oo ay ku sugan yihiin xabligaasoo min allaahi ilahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xarig oo min annaasi dadka xaggiisa ka ahaaday oo haddii aysan haysan xabligaas alle iyo kan mu'miniinta min annaasi waa mu'miniinte dulliya meel kastay joogaan dul saaran marka xabliga min allaahidu waxa weeye waa iimaan inayba inta mu'miniin noqdaan ay alla rumeeyaan maahana sida kale dulliya u haysta laakiin haddii ay mu'miniin noqdaan mu'miniintay ka mid yihiin ahlu kitaab ay ahaayeen lama le dulli damba ma sii haysanayo marka bixablin min allaahi waa iimaankii inay inta mu'miniin noqdaan ay rumeeyaan alle wa xablin min annaasina waa mu'miniinta ballanka ay la galeenoo haddii ay mu'miniinta ballan la galaan oo ama jizyadiiya ama qof mu'mina ammaan siiyo ama mucaahad uu yahay markaasna dulligiiyay ka badbaadayaanoo ammaanay ku jiraan mu'miniinta ammaankooday ku jiraan ilaa bixablin
duribad waxaa la dul dhigay calayhim korkooda adillatu dulli aynamaa thuqifu meel allaale meesha laga helaba niman ihaanaysan weeye ilaa bixablin xarig ayagoo haysta ma ahane xabligaasoo min allah ilaah xaggiisa ka ahaday oo muuminiin markay noqdaan wey markaas iyo waxablin xarig oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaado waxa weeye markaasna waa xarigaasi waa muuminiinta ballanka ay la gelayaan ee ay jizyada ku bixinayaan ama maaragtay qof muumina uu ammaan siiyey ama ay mucaahada la galeen yahuudno wabaa-u way laabteen biqadabin caro oo min allahi alla xaggiisa ka ahaatay caro allay la rogmadeen maxaa yeele waa niman alla beeniyey islaamkii dhibaya dhibaato badan ku jira ilaahayna ku been abuurto walad iyo u tiiriyey waxaan jirin wa duribad waxaa kaloo la duldhigay calayhim korkooda almaskanatu miskiinnimo iyo dulli maskanadan waa dulli mid ah ma ahan miskiinnimadkii oo fiicnaayo nebigu uu ilaahay weydiistay calayhi salaatu wasalaam inuu isagoo miskiina noolaado waa maskano oo dulli ah maxay ku muteen marka maskiinnimadkaas dulliga ah dhalika kaas wuxuu kusoo xasilay biannahum ayagu miskiinnimadkaas waxaa ku keenay biannahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa ku kufriya biaayaatillaahi ilaah aayadihiisa ku kufrinayeen oo qur-aankii nabi maxamed lagu soo dejiyay ku kufrinayeen kitaabkii nabi ciise ku kufriyeen oo injiila tawraad ay ku kufriyeen maxaa yeele mid kasta waxa uu sheegayo haddii ay qaataan waxa weeye waa ay ku toosi lahaayeen tawraad hadday si saxa u qaada lahaayeen injiil iyo nabi ciise ma beeniyeen injiil hadday si saxa u qaada lahaayeen nabi maxamed iyo kitaabkiisa ma beeniyeen marka aayaadka ilahay o dhan ayba beensan yihiin wayaqtuluuna waxay kaloo laayeen alambiyaa ambiyadiio ambiyadii ilaahayna madaxay ka jareen bigayri xaqin xaqdarro xaqdarro ayay ambiyada ilaahay ku laayeen hadda ma cid oo ambiyada ilaahay xaq ku dishaa jirta maya ee waxaa laga wadaa ayagoo og in ay xaqdarro ku socdaan ayay haddana oo aaminsan inay xaqdarro tahay ambiyada ilaahay dileen marka nimanka aayadihii ilaahay ku kufriyey ee aayadihii ilaah ee ambiyadii ilaahay laayay ayagoo og inay xaqdarro ku dilayaan dulliyaa la dul saaray maxaa ku keenay haddaba inay aayadaha ilahayna ku kufriya ambiyada laayaan maxaa ku keenay dhalika kaas oo kufriga iyo dilka ambiyadii ay laayeen waxaa ku keenaya bimaa kii sababkiisa casow ay caasiyeen cisyaanka iyo macsiyada ay ku dhaceen ayaa u keenay oo wakaanuu haddana ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba xadgudubkii ay samaynayeen iyo cisyaankii iyo macsidii ay har iyo habeen dhex dabaalanayeen taas ayaa waxay u keentay inay ambiyada ilaahay ku dhiiradaan oo laayaan inay ilaahay aayaadkiisii beeniyaan ilaahay subxaana watacaala halkan wuxuu nooga sheegayaa ahlu kitaabkii mar hadduu kasoo hadlay oo inay kufriga iyo ihaanada iyo dhibaatada ay ku jiraan ilaahay markuu nooga soo sheekeeyey wuxuu noo sheegayaa inaysa ahlu kufri oo dhan qaldanayn ahlul kitaab oo dhan inaysan wada qaldanayn inaysan wada xumayn in dad badanoo waa wanaagsan oo muuminiin oo soo islaamay ee ahlu daaca ay ku jiraan laysuu sawaan min ahli lkitaabi ummatun qaa'imatun yatluna aayaati illah ana alleyl laysuu ma ahaanin ahlu kitaabkii sawaan kuwa siman niman siman ma ahano kulligood dad xuxun ma ahan aayaddan markii ay soo degeysa waxaa la ihahdaa waxaad markii cabdullaahi bnu salaam allah ka raali noqdo uu soo islaamay ayaa nimanka yahuudda waxay yidhaahdeen kii annaga noogu xumaa ayaa soo islaamay haddii dadka noogu fiican ay soo islaami lahaayeen waxaas inay sax yihiin arki lahayn marka hadda qiso dheer ay leedaho markii hore sayidina cabdullaahi bnu salaam markii uu soo islaamay ayuu wuxuu nabiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay nimanka yahuud la yidhaahdo waa niman been abuur badan oo hanfaryo iyo nabid badan bal waxaad yeeshiduu yidhi waxaad weydiisaa waxa aan ahay intaysa islaamnimadkayga ogaan markaasaa nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bnu salaam ka warrama dheh uu yihi markaase waxay yidhahan huwa ashrafuna wabnu ashrafina wa aclamuna wabnu aclamina macnaha waa ninka noogu wanaagsan kii noogu wanaagsanaayo dhalay waa ninka noogu aqoonta badan ninkii noogu aqoonta badnaayo dhalay ay yidhaaheen markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ka warrama hadduu islaamo ma dhici karta yidhahdeen markaasuu tawxiidka ku dhawaaqo lasoo boodo markay ogaadeen inuu islaamay ayay waxay yidhaahdeen huwa asharuna wabnu asharina wa aqbaxuna wabnu aqbaxina waa ninka noogu xun kii noogu xumaayaa dhalay
waa ninka noogu sharta badan kii noogu sharta badna waxaasay tahay marka hagardaamadooda fiiri marka ilaahay subxaanahu watacaala cabdullahi ibnu salaam iyo raggaasu ammaanaya ilaahay marka wuxuu leeyahy laysu ma ahaanin ahlu kitaabkii sawaan kuwa siman oo kulligood ma sirno oo dad wada xuxun ma ahan min ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ah ummatun dad qaa'imatun toosan ummad toosan oo waddada xaqa haysa ayaa ahlu kitaabka ka mid ah oo yatluuna akrinaya aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa akrinaya ana alleyl habeenka saacadihiisa saacadaha habeenkoo kala duwan ayay aayadaha ilaahay akrinayaan wahum yasjuduuna ayagoo tukanaya sujuuddan hadda tukasha looga jeedaa ayagoo tukanaya oo sujuudsan ayay aayadaha ilaahay akrinayaan macnaha sujuudda kuma akrinayaan aayadaha sujuudda qur-aan sunna kuma ahan sujuudda waa markii nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbih wahuwa saajid waa qofku alla wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay macnaha in ducada la badiyo weeye marka ducadiya sunna ducadaasna inay carabi taha shardiyaho af soomaali iyo af ingiriis iyo luqad ajnabiya lama ogola salaada dhexdeeda way ku buraysaa marka ku ducaysa sujuudda laakiin yasjuduunadan laleeyahay qur-aanka ay ku akrinayaan waa salaadii dhexdeed wahum yasjuduuna ayagoo tukanaya oo markii ay tukanayaan habeenkii saqda dhexe iyo markii kaleba qur-aanka ilaahay aayadaha ilaahay bay markasta afka ku hayaan waxaa hadda loo leeyahay habeenkii qur-aanka akri jireen maalinkiiba akri jireene xataa marka dadku ay ka seexdaan qur-aankii ee dadku hurdada ay la wada yaalaan markaas dad ahlu kitaab ah ayaa kitaabka ilaahay akrinaya oo ku tukanaya sida cabdullahi ibnu salaam iyo allah ka raali noqdo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid a ummatun dad qaa'imatun toosan qaa'imatun hadda mustaqiimatun calaa ariiqi alxaq wey waddada saxda dad ku toosan oo yatluuna akrinaya ana aayaatillahi ilaahay aayaadkiisa kuwa akrinayo ana alleyl habeenka saacadihiisi wahum yasjuduuna ayagoo sujuudsan ayagoo tukanaya loo jeeda ee sujuudda dhexdeeda qur-aanka laguma akrinayo yu'minuuna macnaha haddii lagu akriyana qur-aanka sujuudda dhexdeeda waxba ma dhibayo ma burinayo yani sunno maahan oo ducaa sujuudda sunna ah tilmaamaha kale oo ay sii leeyihiin ahlu kitaabka wanaagsan waxaa ka mid a yu'minuuna waxay rumaynayaan billahi ilaahay walyawmi maalinkiina way rumaynayaan alaakhiri dambeeyey maxaa yeele maalinka aakhiro oo la rumeeyahay waa waxa iimaanka keenaya waa waxa daacada keenaya waa waxa alla ka cabsiga keenaya mar hadduu qofku ogyahay in la dhimanayo ee la is soo bixinayo ee la isxisaabayo waxa weeye alla ayuu rumaynaya laakiin qofku hadduu aaminsan yahay mar hadduu dhinto inaan dib dambe loo raacanayn ee uu saas ku baaba-ayo waxa weeye cibaado lama imaanayo ilaahay iyo maalinka aakhire rumaynayaan waya'muruuna waxayna farayaan bilmacruufi wanaagi wayanahowna waxayna reebayaan can ilmunkari munkarki allahu akbar wayusaaricuuna waxay u degdegayaan fi lkhayraati waxyaalihi waa wanaagsana macruufkay dadka faraan dacwadiiyo gutaan munkarkiiyo dadka ka reebaan wanaagyaalkana waa u degdegaan waxyaalihi wanaaga ah khayraadka u degdegaana ee ilaahay yiri wafii dalika falyatanafasil mutanaafisuun arrinkaas dadka tartamaya ha ku tartameen daacada ilaahay allahu akbar marka aayadahan waxaa arkaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala casharkan iyo kii ka horreeba ilahay inuu kusoo celcelinayo macruufkoo la faro munkarkoo la reebo aad inay muhim u tahay allahu akbar dacwadii ayaa laga hadlaya wayusaaricuuna waxay u degdegayaan fi lkhayraati wanaaga waxyaalaha wanaaga wa ulaaika kuwaasi min asaalixiina dadka wan wanaagsan ay kamid yihiin kuwaas ahlu kitaabka la caayay ee dulliga la duldhigay ee maaragtay xun kama mid ahan saalixiintay kamid yihiin wamaa tafcalu wixa aada samaysaan ummadiinaan taagan oo qaa'imada ahi ummadiinaan qaa'imada oo mustaqiimada wixa aada samaysaan oo min khayrin wanaag ah falan tukfaruuhu la idinkama diidayo la idinma diidayo hadhow waad helaysaan ama wamaa yafcalu wixi ay sameeyaan dadkii ummadii qaa'imada aheed oo ilaahay uu soo yiri min ahlilkitaabi ummatun qaa'imatun wixi ay sameeyaan oo min khayrin wanaaga falan yukfaruuhu lagama inkirayo lama agmarinayo looma diidayo waa leeyihin wallahu ilaahayna caliimun alla og weeye bilmuttaqiina kuwa alla ka baqa markaas alla ku abaalmarinaya
waxa ay muteen uma baahna in loo sheego uma baahnid mar hadda alla ka cabsatay inaad ismuujidid oo aad tiraahdid dadku ha ku ogaadeen waxaasan sameeyay uma baahnid ilaahay baa ku og oo kugu baadinkaaga la socda iyo niyadaada kuguna abaal marinaya waxa aad samaydo ayadan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa in aanan gaalada aysan hantidooda iyo caruurtooda midna aysan cadaabka ilaahay ka celinayn waxba u tarayn markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lan tuqniya ma deeqayso canhum xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo hantidooda walaa awlaaduhum iyo caruurtooda toona min allahi ilaahay xaggiisa ilaahay cadaabkiisa shay-an waxba kama deeqayaan oo waxa weeye hantida qofku waa isku furtaa soo maahan haddii dhibaata soo gaarto maalinka qiyaamo wax madax fur ka qaadanaya ma jiraan isma furo karo maalinkaas dhanka kalena ilmaha waa loo gargaara laga dalbadaa war ihiliya la yiraahdaa way ku garab istaagayaan tolkii qaraabadii way ku ergeynayaan way ku shafeecayaan waxaasoo dhan waxba ma taraya maalinka qiyaamo cadaabka alle waxba kama celi karaan wa ulaa'ika kuwaas asxaabu naari naartii dadkeedii weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeday khaaliduuna ku waari doonaan halkaasay degayaan oo ku waari doonaan ayadan aan galayno ilahay wuxuu noogu sheegayaa haddii aan niri gaalada xoolahooda iyo caruurtooda waxba uma tari doonaan maalinka qiyaamo hadda gaaladii waxyaalo badan ay bixiyaan sadaqo badan ay bixiyaan charity ay sameeyaan adduunka dad ay caawiyaan mucaawanoon iyo qaybiyaan waxaasi maysan aakhiro wax u tari doonin maya qofku mar hadduuba gaalnimo ku dhinto waxa uu sameeyey waxba uma tarayaan marka uu ilaahay agtiisa bangiga wax loogu shubaya alle oo halkaas wax loogu kaydinaya ee uu hadhow aakhiro helayahay waa markuu muumin yahay wax allaala wixii ay sameeyeen adduunyada ee wanaag ahaa adduunyada loogu bedelaya loogu kordhinaya laakiin aakhiro maya markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay mathalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan waa annaga niri xoolahooda waxba uma tarayaan soo maaha hantida ayay bixinayaan waatan mathalu maa yunfiquuna waxa ay bixinayaan tilmaantoodu fi hadihi tan dhexdeeda ay bixinayaan addunya alxayaati nolosha ah addunya dhow adduunyadan aan joogno hooseyda waxyaalaha ay bixinayaan oo mucaawinaadka iyo sadaqada iyo waxyaalaha ay sameynayaan tilmaantooda haddii lagu sheego ka mathali riixin dabayl oo kale wey dabayl tilmaanteed oo kale wey dabayshaasoo fiiha dhexdeeda uu yahay sirun qabow daran dabayl qabow daran wadata dabayshaasoo asaabad ku degtay ama ku habsatay xartha qowmin qolo dalagood ama beerahood qolo abuurkood qabsatay dabayl qabow oo kusoo hagaagtay qolo abuurkood qowmkood dalamuu dulmiyeen anfusahum nafafyaalkoodoo macaasida ilaahay iyo dembi ay ka galeen alla ku dulmiyey oo fa ahlakat dabayshii markaas ay halaagtay hu zarcigii hu xarthigii waxa ay la baxeen waxay la mid noqonayaan dad beer haystay dadkaasna daalimiin ay ahaayeen oo naftooda dulmiyey ee beertii dabayl xoog badan ee qabow ay kusoo hagaagto ay abuurkii o dhan baabi'isay oo dadkaasi beertoodii aysan ku intifaacsan sida markaas daalimiinta qoomkaas ah ee naftooda kufriga iyo macaasida ku dulmiyey aysan beertooda ugu intifaacsan sidaasoo kalea gaaladu waxa ay bixinayaan adduunyada aysan hadhow ugu intifaacsan doonin ma helayaan waayahay ilahay wuxuu leeyay mathalu maa yunfiquuna waxyaalaha ay bixinayaan tilmaantoodu fi hadihi tan dhexdeeda ay bixinayaan alxayaati nolosha addunyaa hooseyda ka mathali riixin dabayl oo kale wey dabayshaasoo fiiha dhexdeeda uu yahay sirun macnaha dabayl tilmaanteed oo kale wey dabayshaasoo fiiha dhexdeeda uu yahay sirun qabow daran dabayshaasoo asaabad ku habsatay xartha qowmin qolo abuurkood qoomkaasoo dalamuu dulmiyeen anfusahum nafyaalkoodoo macaasi iyo kufri ku dulmiyeen oo fa ahlaka dabayshi ay halaagtay hu xarthigii kaasoo kale wey wamaa dalamahum allahu ilaahay ma uusan dulmin ayaga walaakina anfusahum nafafyaalkooda yadlimuuna dulminayaanoo ayagaa naftooda kufri iyo macsi ku dulmiyey
marka ayagaa sabab u noqday in wixii ay adduunyada la baxeen ay aakhire anfici waayaan. hadday islaami lahaayeen ilaahay waa sii lahaa wixii ay adduunyada la baxeen, aakhiro ajarkaasay heli lahaayeen. intaas ayaan casharkeena ku joojinaynaa. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.